السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada khiyaaray muuqaalkeenan maanta waxaan ku qaabaa dhigaynaa sida loo maamulo fiidiyoga Zoom inaad qofka mute saari karto ka bixin karto oo ogolaan karto inuu video kula wadaago iyo wixii la mid ah. waaye marka ugu horeysa waxaynu ka bilaabaynaa shaqada inaan riixno meeshaan ay ku qoran tahay manage participants halka ku dhufo kadib dhinacan midig waxa kuugu soo tixmi doona dadka ku jira Zoom-ka kanada uu mute gareysan yahay mute buu ku jiraa magaciisa aan dul tagaynaa. okay halkan unmute weeye waa inaad mute ka saarto more hadaa ku dhufatana option kale kuu soo furayaa sida inaad remove gareyso oo ka saarto gabigiisa Zoom-ka inaad chat wada shaqeysi gaar ah la sameyso isagoo khaasa inaad u ogolaato video inuu asxaabta la soo wadaago oo soo diro oo soo bandhigo waa inaad u ogolaato inuu duubo Zoom-ka wax ka dhacaya iyo inuu magac iska bedelo waa optionada aad u ogolaan karto. okay sidoo kale waxaa sameynaysaa hoos u soo deg halkan mute all waa inaad gabigooda mute wada geliso dadka oo dhan hal mara one time inaad mute geliso haddaad rabto tanaad riixaysaa markaa. okay mute all ku dhufo dhammaantoodba mute bay gelayaan. sidoo kale halkan waxaa ku aragtaan iyadana unmute all oo ah haddaa ku dhufato in dhammaan dadka ku jira Zoom-ku ay mute-ku ka baxayo la maqlayo codkooda taas way iyana riix dhinacan kale ku dhufo more taas halka waxa way ugu koreysaa mute participant on entry qofku markuu soo galo automatically inuu mute qabsado markuu hore ka soo galaba uu ku soo biro conversation-kan inuu mute hore ka galo bay noqonaysaa hadda halka tag saarto. sidoo kale tan waxa way inuu mute iska qaadi karo tanna inaad u ogolaato inay magaca bedelan karaan tan kale waxa weeye in qofku markuu soo galayo markuu baxayo cod sameeyo dhawaaq uu ku sameeyo inaad loo garayso meeting-kaaga